salaamullaahi calaykum daawadayaal waan idin salaamayaa meelba aad dunida ka joogtaan halkani waa ilas online barnaamijkeynii caawa waxyaabaha aan diiradda ku saari doono guud ahaanba waxa uu noqon doonaa fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay gobolada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne maadaama soomaaliya xilligii burburkii kadib aanan jirin wax kaabayaashii dhaqaalaha ama aanan dib u habeen lagu sameynin webiyada dalkayna mara sida jubba iyo shabeelle waxaad moodaa in magaalada beledweyne uu guud ahaanba sanad walbo saameyn uu ku yeesho dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah geele aynu ku bilownay barnaamijkeynii magaalada beledweyne ayaa lagu soo waramayaa in dadka ay aad uga barakaceen magaalada guud ahaanba ayagoona dadka qaar ay saaran yihiin dhirta xitaa xayawaanka ayaa ka cararaya magaalada beledweyne maadaama aanan jirin meel ay kaga gabadaan roobabka isdabajooga ah ee ka da-ayay saacadihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne dad ku sugan ayaa waxa ay erida sheegayaan ama guud ahaanba magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow ay sheegayaan in ay xaaladda tahay mid aan la saadaalin karin webigana maadaama uu karkaarka soo jabsaday roobna ay dadka usii dheer yihiin oo saacadihii ugu dambeeyey halkaasi ka da-ayay guddigii gurmadka fatahaadaha oo shaaciyey in xaaladda beledweyne ay tahay mid halis ah xubnaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay in xaaladda magaalada beledweyne ay tahay mid halis ah gudoomiyaha guddiga oo ah wasiirka gargaarka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse saciid xamse oo uu u warmayey warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa sheegay in roobabka da-ayay ay xaaladda ooga sii dareen kuwaasi oo sababay in uu xirmo garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan guddiga waxa ay ku booriyeen shacabka soomaaliyeed in ay ka wada qayb qaataan sidii loo caawin lahaa dadka walaalahooda ah ee halkaasi ku dhibaataysan iyagoo si gaar ah baaq uga diray ganacsatada ku nool galmudug puntland iyo gobolada ku dhowdhow in ay gurmad uu raashiin ugu horeeyo ay soo gaarsiiyaan waxaa xusid mudan daawadayaal in sanadkii hore iyo sanadka kasii horeeyay xitaa webiga shabeelle uu fatahaad ku sameeyey xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud ay dalku xukumaysay iyo dowladda hadeertaan iminka talada haysa xitaa uu sameeyey fatahaad aada u daran soomaaliya markii ay burburtay sanadii ayaa waxaa la burburay kaabayaashii iyo xarumihii dhan walba ku aadan oo dadka wax loogu qaban jiray waxaa ka jiray gobolka shabeellaha hoose shabeellada dhexe aan iraade waxaa ka jiray xukuumaddii militariga markii ay dalka ka xariminaysay meydii waxaa jirtay meel ay dowladda ugu samaysay biyo xireen xitaa haddii webiga uu biyo yari keeno amba ay biyuha webiga yaraadaan aanan beeraleyda iyo dadka iyo dunyadaba si uunan saameyn ugu yeelanin laakiin burburkii wixii ka dambeeyey ayaa dalka soomaaliya noqday mid dhan walba u burbura wayna adag tahay in sanooyinka dambe uu soo kabsado haddii aanan la helin jadwal ay xukuumadda xilligaa dalka ka jirta ama xukuumadda timaadaba aanan ay u sameynin waxa la yidhaahdo jadwal
lagu samato bixiyo ama lagaga gaashaanto in ay dhacdooyinkan oo kale joogto u noqdaan gobollada uu maro ama ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba. haddaba waxyaabaha ugu horeeya ee dadku ay u baahan yihiin ayaa waxaa ka mid ah meel ay gabaad kaga dhigtaan dhaxanta iyo qabowga iyo roobka da'aya. sidoo kale waxaa laga baqayaa in ay saameyn ku yeeshaan dhanka caafimaadka maadaama aanan jirin musqulo ay dadka isticmaalaan, maadaama dadka meelihii tagaga ahaa amba dalcadooyinka dadka la dejin jiray xitaa la leeyahay in buurta janta kuntisha xitaa uu saameyn ku yeesho ama uu kala gooyo fatahada uu sameeyey webiga Shabeelle. guddiga waxa ay ku boorinayaan in shacabka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaataan sidii loo caawin lahaa dadka walaalahooda ah ee halkaa ku dhibaataysan, iyaga oo si gaar ah baaq ugu diray ganacsatada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. xubnaha guddiga waxa ay sheegeen in gurmadka uu ku bilowday dardar xoogan, isla markaasna ay dowladdu gurmadkii ugu horeysay gaarsiiyeen shalay magaalada Beledweyne, maantana ay guddiga la kulmeen hay-adaha gargaarka oo ay ugu horeeyaan kuwa qaramada midoobay ee ka howlgala dalka Soomaaliya. guddiga gargaarka ee fatahadaha ayaa sidoo kale sheegay in haatan uu gargaar raashiin ah uu ka imaanayo gaalkacyo kuna soo wajahan yahay magaalada Beledweyne, maadaama ay bilowdeen gurmadka diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopteriska, kuwa oo ay adeegsanayaan saaxiibada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ayagu ku sugan magaalada Muqdisho iyo ciidanka Mareykanka iyo ciidanka Soomaaliya aan iraahday ciidanka Soomaaliya loo yaqaano commandoska danab ayagu ku sugan magaalada Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. saldhigooda ugu weyn uu halkaasi uu yahay ayaa la sheegayaa in ay bilaabeen in ay raashiin kor ka soo daadiyaan, maadaama aanan jirin bar ay caga dhigtaan diyaaradaha qumaatiga u kaca, maadaama garoonkii diyaaradaha ee magaalada Beledweyne xitaa uu ku xirmay roobkii xalay halkaa ka da'ayay. sidoo kale waxa ay sheegayaan in ay dadka iyo dunyadaba ay saameyn weyn ku yeesheen fatahada webiga uu sameeyey. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in haatan uu gargaarka raashin uu ka imaanayo qaybaha kala duwan ee dadweynaha Soomaaliyeed. guddiga ayaa faray in cid kasta oo dhibaatooyin ka dhacay gargaar u ururinaysa ay iyaga la wadaagaan, ciddii aan soo marinna ay la xisaabtami doonaan, iyaga oo sheegay in ay sameyn doonaan maxkamad guurguurta oo ay ugu talagaleen dadka musuq maasuqa sameeya deeqaha loogu talagalay qoysaska ay fatahaduhu webiga ay saameyn ba'anta ku yeesheen. halkaasi aan idinku celiyo amba aan idin bayaaniyo waxa ay maxkamaddu loogu talagalay in waxaa jira Soomaaliya haddii ay dhacdo musiibooyin ama fatahado ama roobab ama ay abaaro yimaadaan, waxaa jira dad musuq maasuqa gargaarka soo gaara ama loogu talagalay dadka ay si dhabta gaajada u qabatay ama ay xanuunka taabatay maal iyo nafba ku waayay musiibooyinka marka ay dhahaan. dad waxaa jira ka faa'iideysta oo u arka in ay tahay xaalad ay kaga faa'iideysan karaan ayagoona xilligaa isleh in aanan jirin cid
idin dabagasha. haddaba faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dooni saakay ay mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabelle kula degtay magaalada Beledweyne oo uu fatahaad ka geystay webiga Shabeelle ee mara halkaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Hirshabelle Maxmed Macalin Xasan Kulmiye oo la hadlayay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in dhacdadaasi ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo dad kaloo shacab ah. haddaba saakay markii ay dhacdadani dhacday dadkii ku dhintay oo ku waayay ayaan soo helnay naftooda ku waayay ayaan soo helnay magacyadooda. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Hirshabelle Maxmed Macalin Xasan Kulmiye oo la hadlay warbaahinta ayaa u xaqiijiyay in dhacdadaasi ay ku dhinteen dad fara badan. dadka ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 7 qofood, welina ay wararku qaar sheegayaan in la la'yahay dad kaloo meel iyo jaan iyo cirib ay toona dhigeen. sidoo kale agaasime Kulmiye ayaa sheegay ama shaaciyay magacyada mas-uuliyiinta ku dhintay halkaasi, kuwaasi oo kala ah Dahabo Xasan Axmed oo ahayd la taliyaha dhinaca habeenka ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare, Sharma Arke oo nin magacii lagu soo koobay Sharma Arke oo asagana ka tirsanaa xafiiska dowladda hoose ee Beledweyne, Deeqo oo ahayd gabar u dhaqaaqaysay arrimaha bulshada ayaa ayadana ka mid ahayd dadkii saakay ku naf waayay dhacdadani ka dhacday magaalada Beledweyne. dhacdadan ayaa waxa ay xanuun ku noqotay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba, maadaama magaalada Beledweyne ay tahay meel istiraatiiji ah ee aanan u qalmin in sanad walbo sidaan oo kale ay webiga uu ku soo fataho. dadka Soomaaliyeed ayaa su'aal iska weydiinaya sababaha ay maamul walba yimaada uunan u samaynin wax la yiraahdo ka gaashaamid inta aynan dhacdan oo kale aanan dhicin. xubnaha ka shaqeeya gurmadka ayaa sidoo kale sheegaya in laga yaabo ay dhimashadu intaasi kasii badnaato. doonta qalibantay ayaa waxaa saarnaa ilaa iyo in ka badan 20 ruux oo ay ka mid ahaayeen duqa magaalada Beledweyne Safiyo Xasan Sheekh Cali iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, walow asaga la soo badbaadiyay labadaasi mas-uulbo. xaaladda ka jirta magaalada Beledweyne ayaa ah mid aad u adag, waxaana saameyn daran ku yeeshay fatahaadda uu webiga Shabeelle ka geystay gudaha magaaladaasi. fatahaadahan ayaa sidoo kale saameysay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif oo gebi ahaanbo xirmay, taasi oo uga sii dartay dhibaatada ka jirta halkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa saartay guddi ka kooban Hirshabelle iyo guddi ka tirsan labada dhinac oo magacyadooda gurmadka oo u magacaawday gurmadka in ay dardar geliyaan. dhibaatadan ayaa waxaa la filayaa in ay oga sii darto. xaaladan lama saadaalin karo sida ay noqon doonto, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey gudoomiye Kulmiye. ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dhammaan
daawadayaal qof alaala qofkii daawada barnaamijkan waxaan ka codsanaynaa in ay u gurmudaan walaalahooda ku dhibaataysan magaalada Beledweyne sidoo kale fatahaad ayaa ka jira magaalada Bardaale ee degmo ka tirsan gobolka Baay ayadana uu roobab daran uu ka da'ay ayaa daadad ay soo galeen magaalada inkastoo aan loo gurmado karin intuu dhaxaysa Bardaale iyo magaalada Baydhabo intuu dhaxaysa waxa haysta kooxaha nabadiidka ama al-shabaab xaaladda ayaa mid aad u daran halkan ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan anigoo geelaya idin la socodsiinay tan ismaqal dambe oo xiiso leh waxaan idin ka codsanaynaa sida iyo nabad geliyo